kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorkorona dalka wararkana waxaa ka mid ah howlgallo culus oo ka socda magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug isla markaana la baadagoobayo kooxihii ka dambeeyay dilkii wadareedka ahaa ee ka dhacay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. taliska booliiska Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo khasaaraha sii kor. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlay dadkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug iyo fariin culus oo u diray maamulka Galmudug. Ra'iisul ku-xigeenka dalka oo arrin la yaab leh ka sheegay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyo kulan laga yeeshay khilaafka xoogaystay ee ka dhaxeeya labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal galka wararka. haddii aad ku cusubtay waxaa saartaa subscribe si aad u heshid warar xaqiiqa iyo xogtii ugu dambeysay Soomaaliya. wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan howlgallo amniga lagu xaqiijinayo. howlgalladan oo ay sameynayaan ciidamada ammaanka ee maamulka Galmudug ayaa waxay ka socdaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada Gaalkacyo qaybta Galmudug. ciidanka ayaa guri u baaraya waxaana shacabka ay weydiinayaan aqoonsi iyo cidda taqaana sida ay soo sheegayaan wariyaasha ku sugan magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. weli howlgalladan lama sheegin cidda si rasmi loogu soo qabtay, hase yeeshee ciidamada ayaa galaya inta badan guryaha ku yaala Gaalkacyo. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay inay ku daba jiraan qaar ka mid ah kooxdii shacabka xalay ku xasuuqday koonfurta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. 13 ruux oo habeen ka hor koox hubeysan ay ku dishay duleedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka soo jeeda deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle. kooxda dilka geysatay ayaa ka caraysnaa sargaal ka tirsanaa NISA oo lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. qaraxyo mataana ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana qaraxyadan ay kala dambeeyeen daqiiqado kooban. qaraxa koobaad ayaa ka dhacay isgoyska sayidka goob ay ku sugan yihiin ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga ilaaliyay golaha shacabka, waxaana qaraxaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa. goobta qaraxa ka dhacay ayaa ah meel inta badan mashquul ah oo ay isticmaalaan mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya, waxaana sidoo kale halkaasi ku yaala wasaaradaha arrimaha gudaha iyo midda amniga iyo xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. qaraxa labaad ayaa ka dhacay agagaarka kilomitir 4 waxaana loo adeegsaday gaari noociisu yahay Toyota Noha oo qalin ah. ciidanka amniga ayaa ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan wadihii gaarigaas, wax khasaare ma uusan geysan. taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 9 ruux ay ku dhinteen qaraxyada sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 25 ruux. taliyaha booliiska sidoo kale waxa uu sheegay in qaraxa ka dhacay kilomitir 4 uu ku dhintay qofkii waday gaariga isla markaana ciidanka booliiska ay gacanta ku dhigeen mid kale oo la socday gaariga qarxay. ammaanka magaalada Muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyay wuxuu noqday mid faraha ka sii baxay iyadoona ciidamada ammaanka ay howlgallo joogto ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka hadlay falka magaalada Gaalkacyo loogu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan isla markaana ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, isagoo cambaareynayay falkaasi kuna tilmaamay mid argagax leh. anigoo ku hadlaya afka golayaasha dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan cambaareynaa falkaasi lagu laayay dadkaasi masaakiinta ah. dadka Soomaaliyeed waa walaalo, xidid iyo ehel intuba meel kasta ayay joogaan. waxaan ugu tacsiyeenaynaa ehelka ay ka geeriyoodeen dadkaasi, waxaan u rajaynaynaa in eebbe uu ka waraabiyo jannatul firdaws, ayuu yiri madaxweyne Waare oo ka tacsiyeynayay dadkii lagu xasuuqay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo sii hadlayay ayaa waxa uu muujiyay sida ugu naxay falkaasi lagu dilay 13 ruux oo dad shacab ah oo xoogsato ahaa, wuxuuna ugu baaqay dowlad goboleedka Galmudug in baaritaan dhab ay ku sameyso falkaasi isla markaana dadkii ka dambeeyay cadaaladda la horgeeyo. dhanka kale falka dilka oo aad looga xumaad ayaa maamulka Galmudug loogu baaqay in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan cadaaladana la horkeeno dadkii ka dambeeyay. ra'iisul ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa shalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ka furay shirka qurbo joogta Soomaaliyeed.
shirka oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa waxaa ka qayb galay ergooyin ka kala yimid dalalka dunida oo shirka lagu casuumay iyadoona looga hadli doono kaalinta qurbo joogta, dib u heshiisiinta, ganacsiga iyo arrimo kale. Ra'iisul ku-xigeenka dalka oo khudbad ka jeediyay furitaanka shirka ayaa sheegay doorka qurbo joogta Soomaalida ay ku leeyihiin siyaasadda dalka, wuxuuna soo qaatay in 107 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya qurbo joog yihiin, 3 meelood hal meelna ay golaha wasiirada ka soo jeedaan qurbo joogta. Inta badan dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyaa in mas'uuliyiinteeda ay ka soo jeedaan qurbaha isla markaana ay haystaan dhalasho wadamo kale. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya la soo afjarayo. Gudoomiyaha oo shalay ka hadlay kulanka aqalka sare ayaa sheegay in isaga iyo gudoonka golaha shacabka ay is arkeen isla markaana kulanka ugu dambeeyay uu dhacay xalay. Cabdi Xaashi ayaa sheegay in hal aqal uusan diyaarin karin sharciga dalka isla markaana dastuuri ay tahay in labada aqal ay wada shaqeeyaan. Wuxuu sheegay in isaga iyo Maxamed Murtad Cabdiraxmaan ay la kulmayaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khilaafkana la soo gabagabeynayo. Dhinaca kale, Cabdi Xaashi ayaa sheegay in awoodaha aqalka sare aysan qeexnayn, waxaana uu guddiga dastuurka ka dalbaday in ay caddeeyaan awoodda golaha aqalka sare ee dalka. Bilooyin badan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa ka taagnaa khilaaf aad u xooggan, kaasi oo markii dambe xoogeystay isla markaana saameyn ballaaran ku yeeshay sharciyo badan oo baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen isla markaana la rabay in la horgeeyo golaha aqalka sare. Al-shabaab oo 13 askari oo ka mid ah booliiska Kenya ku dishay gobolka ismaamulka Wajeer. Guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaya daawadayaal warkii aad ka daawanayseen galka wararka. Intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.